sodhowa saaxiibayaal jimco wanaagsan meel walba aad joogtaan ciyaaraha maanta maxaa ugu waaweyn aan soo qaadan doonaa muuqaalkan haddaad nagu cusub tahay subscribe inoo saar bartan youtube-ka mahadsanidin halyigiri Newcastle United Alan Shearer ayaa sheegay in tababaraha Manchester United Ruben Amorim shaqadiisu halis ku jirto dii kooxdiisa guuldaro kala kulanta Chelsea ama kooxda Blues-ka United-ka ayaa ku martigelin doonta Blues Old Trafford iyagoo raadinaya guushii labaad xil ciyaareedkan laakiin haddii natiijooyinka ay ku socdaan si xun Red Devils waxaa halis ugu jirtaa inay aagaan ama galaan kaalmaha ugu hooseeya horyaalka United-ka ayaa hadda fadhiisa booska 14aad iyadoo 4 dhibcood ka heshay 4 kulan ee ciyaartay inkastoo cadaadisku sii kordhay Amorim ay ku adkeysanaya falsafada 3-4-3 wuxuuna shaaciyay inuusan ka tanaasuli doonin Alan Shearer oo la hadlay Bedvar ayaa yiri ma ogolaan karaan in mar kale si liidata loo garaaco usbuucan haddii ay dhacdana waxa laga cabsi qabaa soo socda ee ka dhici doona tababaraha ama heli doona وعند أقول دراميرم وعقيها وحامسين هاي بس أسبوعاً وامد قان لجو جاريو وعجقد زوجا من دون نتيجة كلنكا شرر وحرميسين هاي أم آلان جرر إن كلنكا جلسي نقنكرو مد قامي مستقبل كتوبا حلقة مانشستر يونايتد حد يقول دري سو جارتنا إن لراح الديا يوبد أنت يوري إن عكلا ورك صباح يا فرانسيسكا يتلمام إن حتى البي اس جي حركة فرانسيسكا عثمان ديمبيلي لو ما قعب عيالان جوجونا سكوبد عكتي أدون كسنة كان كاو كوغوليستون دونا بلان ديورو كونتادا ماتش داي برنامج اكس تويتركا ayaa taa ka rogay in qaban qaabiyaasha awaamarinta ay horeba ugu wargeliyeen Dembele inuu yahay guuleystaha iyada France Football ay rasmiyan gudeysiin doonto bilada ugu weyn kubadda cagta xidigan farsamadii xawaaraha ajiibka ku caanbaxay ayaa noqday hogaamiyaha muuqaalka kubadda cagta caalamka kadib xilaareed uu ku muujiyay heer aan caadi ahayn hase ahaatee kooxda Paris ama xulka qaranka Faransiiska Dembele ayaa si gaar ah Paris ugu hogaamiyay guushii taariikhiga ah Champions League isagoo door weyn ka qaatay kulamada ugu adkaa gaar ahaan kulamadii kama dambaysta Usmana waxaa loo arkaa inuu si dhab ah ugu biiray liiska xidigaha ugu waaweyn ee soo mara kubadda cagta waxaa leeyahay laacibkan ayaa ah midka abaalmarintan la sii ogay xilligan si hoose in lagu sii sheegaba in uu ku guuleystay ama uu heli doono abaalmarinta Ballon d'Or dhinaca kale Marcus Rashford wuxuu ka hadlay farqiga u dhexeeya Manchester United iyo Barcelona weeryahanka Red Devils Rashford ayaa bandhig cajiib ah sameeyay kulan 2 gool dhaliyay ciyaar ee wajeen Newcastle Champions League Rashford 27 jir ah ayaa muujiyay tayadiisa isagoo amaanay tababaraha Mark Hansi Flick ka oo sheegay inuu dib ugu soo celiyay kalsoonidiisii kadib waqti adag ugu soo maray ka shaqeynta Ruben Amorim Hansi Flick waa tababar heer sare ah oo qof weyn waxa kaliya uu ka farxi doona maaha 3 dhibcood aan helnay bal sidoo kale sidaan u guuleysanay markasta oo ciyaartu ku adkaato cadaadiska sare haddana wuxuu isku dayaa in kubadda aan ka soo saarno gadaal markasta ma shaqeyso balse waxaan u muuqnay koox togan tayadana waa mid wax abuuri karta wuxuu ku daray waxaan dareemayaa kalsoonida tababar Felix iyo koorinta aan imaan waxaan ogaa inuu yahay tababar weyn balse la shaqeyntiisa dhab ahaantii wax lagu raaxaysto guushan sidoo kale fariin noqotay tababaraha Amorim Manchester ku dhibaatoonay iyadoo Rashford uu muujiyay Barcelona ay ku soo celisay heer ciyaareedkiisii aad ku wanaagsanaa sheekooyinkan ayaa maanta ugu xisaabnaa saaxiibayaal iyadoo Champions League xalay kulamo weyn la soo diiwaan geliyay Barcelona guul weyn ka gaartay kooxda kubadda cagta Newcastle halka kooxda kubadda cagta City iyadana guul ay ka gaartay kooxda Talyaaniga ee Napoli kulamadaas ayaa ahaa kuwa ugu xiisaha badnaa qaaradda Yurub